su'aasha afraad waxay ku saabsan tahay soonka ramadaan cidda dafirta waajibnimadeeda muxuu xukunkeedu noqonayaa? jawaabteedu waxay tahay soonka ramadaan waajibnimadiisa qofka dafira waa gaaloobayaa oo wuxuu noqonayaa kaafir billaah, waayo wuxuu beeniyey qur'aanka ayuu beeninaya. allah baa wuxuu sheegay inuu markaa faral yahay ayuu sheegay. marka qur'aanka iyo sunnada ayaa markaa labaduba markaa waajibnimada marka ay sheegeen. arkaantii islaamkaanu ka mid yahay. kutiba calaykum asiyaamu kama kutiba cala aladiina min qablikum, yacni waxaa laydinku faral yeelay korkiinna soom baa laydinku faral yeelay sida loogu faral yeelay ummadihii idinka horreeyey baa idinkana laydinku faral yeelay. nebiguna wuxuu yidhi calayhi asalaatu wassalaam: buniya alislaamu calaa khamsin shahaadati an laa ilaaha ila allah wa anna muxammadan rasuulu ullah wa iqaami asalaati wa iitaa'i azakaati wa sawmi ramadaan. marka ramadaan in la soomaa arkaanta islaamkaee shantaa buu ka mid yahay. muslimiintuna waa ku ijmaacsan yihiin, ijmaac qatciyay ku ijmaacsan yihiin. ruuxa markaa beeniye waajibnimada soonka ramadaan waa gaaloobaya biijmaaci almuslimiin oo diintu ka baxayaa, wuxuu noqonayaa kaafir billaah buu noqonaya.